nafsida wuxuu bixin kartaa ma jirto hadday jirtana nafta nabi uunbay ku jirtaa ashhadu an laa ilaaha ila allah adiga hortaada waxaan ku qirayaa dadka hortoodana ka markhaati kacaya dadkana aan u sheegayaa ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa adiga ilaa ilaahay mooyaane adiguna nebi rasuula inaad tahay baan halkaa ka markhaati kacayaa buu yidhi salaadii nebigu hortiisa uu ku tukanayay kuma islaamin baa la yidhi safwaan binu umaya laana muddo dhan buu nebiga la jooguu ag fadhiisanayay isagoo mushrika uu nebigu soo dhowaynayey oo marka salaada la tukanayana maka lagu tukanayana intuu nebigu horay u baxo ayuu safwaan binu umaya gadaal u baxay nebigu iyo saxaabadu sida uu cibaadaysanayaan buu fiirinayey kayfiyaddii nebigu u tukanayay kuma islaamin waxa uu ku islaamo ninkaa bedishay deeqsinnimadii nebi maxamed markuu arkay buu ku islaamay diinta islaamka deeqsi buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofalihii qofkii ilaahay la kulankiisa rajaynaya aakhirana ku xisaabtamaya cidda noloshaada macallim aad uga dhiganaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii nebi maxamed cid isaga aanan ahayn aad ku dayataa noloshaadii adigaa god ku riday ogow madiinata almunawaruu nebigu yimiday wuxuu arkay yahuuddii magaalada madiina kula noolayd oo caashuuraa soomaysa markaa buu nebigu ku yidhi maalinkanay soomayaan waa maxay waa maalinkii ilaahay nebi muuse calayhi salaam uu badbaadiyey ee fircoonna laga halaagay weeyaan markaa muuse ayaa soomay shukran lirabbihi buu u soomay reer bani israa'iilna waa cibaadadooda weeyaanoo way soomaan markaa buu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annagaa nebi muuse uga xaq leh sooma buu rasuulku yidhi waa 10 caashuuro weeyaan markay saxaabadu ay soomeen ayuu nebigu yidhi kal dambe haddii ilaahay i gaadhsiiyana taasuuca sagaalaadka ayaan ku darayaa oo maxaan ugu darayaa sagaalaadka yahuudda ayaan khilaafayaa weeyaan xaggii cibaadada ayuu nebigu yahuudda ku khilaafay maanta mujtamaca muslimiinta badana adduunyada ku noolna iska daa cibaade bal dhaqankiiba maanta ay ku dayanayaan maqduubi calayhim iyo waladaalliin bay ku dayanayaan salaadda markaad tukanaysidna ayuhalmuslim waxaad leedahay ilaahow aniga dariiqa waxaad marinaysaa kuwii dushooda aad u nicmaysa dariiqooga imari kuwii loo nicmeeyey waa dadkii ilaahay doortay alambiyaa calayhim assalaam waasidiiqiina waashuhadaa waasaalixiin ee ilaahow dadkaad u cadhootay iyo kuwii baadiyoobee dariiqa xagka ka leexday ilaahow jidkooga aniga hay marin baad ku ducaysanaysaa laakiin mujtamaca muslimiinta maanta dhaqankooga eeg xagga salaadda markay noqoto cibaado markay noqotona masaajidka dhexdeeda markaa sunno ama salaad farada tukanayno waxaan ku qowlaynaa ilaahow dariiqa mustaqiimka imari dariiqii aad addoommaha aad ugu nicmaysay aad marisay imari akhlaaq markay noqoto iyo dhaqanna maanta mujtamaceennu waxay ku dayanayaan dadkii ilaahay u cadhooday iyo dadkii baadiyoobay baan dhaqankooga maanta aan qaadanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu khilaafay cibaadadii buu ku khilaafay cibaadadii innaguna maanta mujtamaca muslimka meeshay doonaanba ha joogaane caadadii bay maanta kaga dayanayaan yahuud iyo nasaara marka muslim ayuhalmuslim ciddaad ku dayanaysaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam low kaana muusa xayan lamaa wasacahu ila itibaaci baa nebigu yidhi haddii nebi muuse adduunyada maanta uu joogi lahaa shareecadda isaga loo soo dhiibay ma raaceene tayda unbuu raaci lahaa buu rasuulku yidhi laanna miihaaq baa ilaahay ka qaaday ambiyada dhammaan jamiica alambiya nebi kastoo la soo diray risaalad marka loo soo dhiibaayo waxaa ballan laga qaaday adoo risaaladdaa haysta haddii nebi maxamed adduunka uu yimaado inaad isaga rumaynood raaci ballan ii qaad baa ilaahay yidhi markaasaa nebi walba ilaahay hortii uu ka marqaaday uu ka markhaati kacay haddii isagoo adduunka jooga nebi maxamed uu yimaaduu shareecadda la yimaado islaamka inuu nebi walba nebi maxamed raacayo waa ballan nebi walba ilaahay uu la galo ka qaaday weeyaan nebiyadii ay ballan qaadeen inay raacayaan ay ilaahay hortii ka ballan qaadeen inay ku dayanayaan ayaa innakana ilaahay nooga dhiga imaam ilaahay nooga dhiga qudwo inaan ku dayanno falidaalika natacallam waa inaan barannaa noloshii nebigeenna calayhi salaatu wassalaam dulqaadkiisu sidee buu ahaa sidee nebigeennu ummadda ugu dulqaadanayey xagga diraasadda markay noqoto tacliinta
masaajidkiisii buu nin acraabiya cawradiisii intuu la soo baxay buu ku kaadiyey saxaabadu ninkii way ku yaaceen walaakiin nebigu waa ka riday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhu war daaya buu yidhi war daaya daaya kaadida ha ku kala joojinina buu yidhi daaya halkuu ku kaadiyey ordoy ninkuu biyo ka badan ka shuba buu nebigu ku shuba masaajidkuna bataax buu iska ahaa jagac isagii buu nebigu u yeedhay ninkii aadaabtii maskiidku u sheegay iyo kiina uu tilmaamo wuxuu ku yidhi ordoo meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba fa innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcaduu mucasiriin buu nebigu yidhi inaad ummadda xaqa u dhibrisaan baa laynii keenee inaad ummadda xaqa aad ku adkaysaan markaad u gudbinaysaan adduunyada layniima keenin buu rasuulku yidhi isagiina waa uu yeedho wuxuu sheegay masaajidku ahamiyadda uu leeyahay waa meel loo dhisay ilaahay in lagu caabudo in salaadda lagu tukado in qur-aanka lagu akhristo in diinta lagu barto markaasuu u sheeguu yidhi waa masaajid aqalkan ilaahay baa iska leh waa meel daahira weeyaan leanna markaasuu saxaabigii nebiga ammaani jiray markii dambe mucallim buu ahaa kayfiyaddaasuu nebigu ummadda wax u baraayey sala allahu calayh wasalam khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhex taagay dadka dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaan aho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkiibuu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam mas'alad allii mas'aladuu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mathalu laclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin reer baadiyo acraabiya ayaa nebigeennoo saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimiday ayuu cimaamaddii nebiga go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmutalibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buuha 100 halaadoo geela isagana la siiyey xaakim haddaad cid ku ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mathalu lacla dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay mithaalkii u sarreeyey lagu dayanayey inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan abadan limaada laanna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoolla caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabi'inayaa markaa buu nebigu saa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doona siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeyo oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaas siiya kan intaas siiya kan intaas siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qayliyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa cidda lagu leeyahay waayo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam bal u fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma cadaalad samaynin ilaahay dartiina loogama jeedo hadalkaa ninkan lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi maxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radia allaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsomoo isbeddelay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn buu nebigu yidhi soo qabtoo ninka xidha nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay dooni ha joogaan iyo qaa'idul acdam qaa'idkii weynaaya ummadda hoggaankayga ilaahay noogu dhiibay halkay kala joogaan bal isku eg
saasuu eegay nebigu sal alla alay slam markaasuu yidhi ilaahayo nebi maxamed hadday iyaka cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn kara buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badanba waa la dhibo uu sabray buu rasuulku yidhi laanna qur-aankaa nebiga qabanaayey qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur-aankaa laga bartaa qofka muuminka waxaa xakamaynaya waa qur-aanka weeyaan haddaad cadhooto qur-aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur-aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa guracanto qur-aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaada lianna qur'aanku waa kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaalad dhammaystiran baa qur-aanka ku dhammaystiran waa maxkamad cadaalad oo dhammaystiran markaa buu nebigu uhi walaalkay muuse calayhi salaam waa nebi muuse intaa in ka badan ba isagana waa la dhibo uu iska sabray dee anigana waa sabri bay ka dhigan tahay markaa wax kale iima yaallo sabirunbaa ii yaallo weeyaan sabir badana dulqaad badana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaad mas-uul isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga ka ilaahay adeecaya ka cibaadadiisu naaqis ka tahay ka xaqa ilaahay ilaalinaya ka xaqa bini aadanka weli aan dhammaystirin ka akhlaaqda wanaagsanne ka akhlaaqdiisu ay liidato ka diinta ku fiican ka diinta weli ku dhaqankayga ku fiicnayn intaba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu isku waday ra'iisu lmunaafiqiin cabdullaahi bnu ubaya bnu salool inankiisii baa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam markii laga soo noqday ghaswat alaxzaab markaasuu yidhi yaa rasuula allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay waxaan ka baqayaa aabbahay nin muslima intuu dilo ninkaa muslimka ee saxaabiga aabbahay dilay inay anigana gacan igaga siibato sidaa naar ku galaan ka baqayaa aabbahay kurkiisa anigaa soo goynoo kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi aabbihiina waa ra'iisu lmunaafiqiin weeyaan markaa buu nebigu yidhi may kugu fasaxi maayo buu ka yidhi waayo la odhan maayo saxaabi baa munaafiq dila la odhan maayo lagu sheekayn maaye waxaa lagu sheekayn saxaabadii muxamed baa islaynayso kurka iska jaraysa adigana waa aabbaha suxbaddiisa wanaaji buu ka yidhi u samafal annagana sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doona buu rasuulku ku yidhi muddo yar kadib ninkaa uu dhiman doonaa ra'iisulmunaafiqiin deedna markuu dhinto saxaabigii uu dhalay baa nebiga u iman doona wiilkiisa cabdullaahi baa iman doona oo nebiga ku odhan doona iigu tuko markaa cumar bnu khadaab baa ku odhan doona yaa rasuulallah munaafiqa ha ku tukane daac ila salaata aljanaasaha qofka lagu tukanayo waa ducayn qofka loo ducaynayo weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi cumar waan ku tukanaya iska daa buu ka yidhi markaa buu yidhi yaa rasuula allah ma ninka munaafiqnimadiisu ay caddahay qur-aankuna uu fadeexadeeyey maad ku tukanaysaa markaa buu yidhi yaa cumar aniga khiyaar baa ilaahay ii siiyo waa kii yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allaahu lahum khiyaar baa ilaahay aniga ii siiyo waa ka ilaahay igu leh haddaad doonta u dembi dhaaf dalab oo u duceey weeyaan haddaad doontana haba u ducayn haddaad kuwaa 70 jeer ilaahay aad dembi dhaaf u weyddiisana loo dembi dhaafi maayo baa laygu yidhiye khiyaar baa laysiiyo khiyaarkaa horreeye han ku tukadee cumarow iska kaydaa buu nebigu ku yidhi nebigu waa og yahay ninkaa salaadda nebi maxamed uu ku tukanayo inaysan waxba u taraynin waa og yahay laakiin nebigu ayuu ilaalinayaa wiilkiisa saxaabiga ee jaliilka ee dharaariya habeen nebiga ag taagan ee diinta islaamka difaaceega dhiiggiisa ula diyaaray inuu ku bixiyo kaabuu nebigu qalbigiisa dhowrayaa markaa nebigu ummaddiisa uu isku wadaa uu ha ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana markaasuu yidhi yaa rasuula allah qabrigiisana noo raaco balkaalayo haddana halkaana nala dul joogso lacalla laga yaabaa duljooggaagaa ilaahay inuugu naxariista aabbahaye markaasuu raacay rasuulku cumar binu khadaab baa nebiga gacanta hor dhigoo yidhi yaa rasuula allah nimanka munaafiqiinta qabuurooga ha tegina ka joog haddaba markaa buu nebigu gacantii cumar iska qaado wuxuu yidhi cumarow khiyaar baa aniga ilaahay ii siiyey khiyaarka ha iga qaadine iska kaydaa buu nebigu ka yidhi cumarow uu tegey qabrigiina nebigu waa kor taagay waa u duceeyey uu ka soo noqday soo noqodku soo noqdaa nebiga qur-aanka ku soo degaaya oo la leeyahay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi innahum kafaruu biاllaahi wa birasuulihi
wamaatuu wahum faasiquuna baa lagu yidhi maanta wixii ka dambaysa baa nebiga lagu yidhi kuwa munaafiqiinta salaadna kuma tukan kartid oo uma ducayn kartid qabuurtoodana haskor taagin baa nebiga lagu yidhi aayaadka qur'aankee soo degay iyo waxaa iswaafaqay tala bixintii cumar binu khadaab uu soo jeediyey maalinka intii ka dambaysay baa la yidhi cumar binu khadaab marka talada uu nebigu saxaabada uu shuurada uu tala gelinayo talada cumar binu khadaab uu dhiibtaa nebigu si gaaruu iskaga eegi jiray baa la yidhi limaada imaam suyuuti raximahullah kitaabu taariikh alkhulafaa wuxuu ku sheegay 15 tala bixin oo cumar uu ummadda u soo jeediyey tala ummadeed oo nebi maxamed uu u dhiibtay iyo qur'aankaa iswaafaqay baa lagu yidhi xijaabkaa ka mid a maqaami ibraahim baa ka mid a aayaadka munaafiqiinta ka warramaya ayaa ka mid a 15 talo oo cumar uu nebiga u soo jeediyey iyo qur'aankaas waafaqay baa la yidhi intaa intay ka dambaysa hadduu cumar tala dhiibto nebigu talada cumar si gaaruu isha ugu hayn jiray baa la yidhi markaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu nebigu ummaddiisa iskugu waday xagga cishradana cishradu waa maxay sidee nebigu reerihiisa ula dhaqmaayey ilaa shakhsi mutakaamil u ahaa nebi maxameda ilaahay baa yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim jaanib keliya kuma sifoobin xagga cibaadada waa maal xagga akhlaaqda waa maal xagga maamulka waa maal xagga shujaacadda waa maal xagga naxariista waa maal xagga tarbiyadda awlaadda waa maal xagga maaragtaane deeqsinimada waa maal xagga zuhdiga waa maal xagga mucaasharada reeraha siduu loola dhaqmo waa maal maal waa maxay waa tusaale caaisha radia allaahu canha waa la weydiiyey aqalladiisa nebigu markuu joogo muxuu qaban jiray noo sheeg baa lagu yidhi markaasay tidhi umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha waxay tidhi aqalka markuu nebigu joogo wuxuu qaban jiray maynii sheegaa kabta isaga ka gooday buu nebigu iska toolan jiray marada ka dildalaacantayna nebigu uu karkaran jiray neefkiisana uu maalan jiray aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanayna nebigu waa noo qaban jiray tidhi isagaa noo adeegi jiray adeeg laakiin salaadda hadday gaadho nebigu salaadduu u baxaya calayhi salaatu wassalaam xuquuqda eheladiisa uu ilaalin jiray bal isagaa inoo sheegoo yidhi nafaqada dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku nafaqaynayso iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraynayso iyo dirhamka maaragtaanay miskiin aad siinaysid iyo dirhamka ehelkaaga aad ku nafaqaynaysid waxaa ilaahay agtiisa ajar badan buu nebigu yidhi ka aad reerkaaga ku nafaqaynaysa ajar badan buu rasuulku yidhi ka reerkaaga aad siinaysid qadra alxaaja markaasuu akhlaaq buu reerihiisa ku maamulaya akhlaaq wanaagsan uu iman jiray aqalka caaisha wax la cuna ma yaalaan caaisha maya bay odhan jirtay markaa buu odhan jiray waa iska soomanaha iska daa xabsi uu tegi jiray wax la cuna ma yaalaan saaka maya waxa ma yaalaan rasuul allow waa soomanaha iska daa buu odhan jiray cunto haddii la siiyey cajabisana uu cuni jiray hadday cajab gelin weydana nebigu ma ceebayn inuu ka tegi jiray wixii cajabiye wixii loo sameeyo haddii shaygaa uu cajabiyo ma odhanayn haddii shayga la sameeyana ma odhanayn maxaa sidan u samayseen shayga aan loo samaynna ma odhanayn maxaasaa u samayn weydeen ma dagaalamayn ma cadhoonayn hal mar bay dumarkiisu nebiga ay intay isku yimaadeen yidhaahdeen muu nebigu biilna siiyo masaariif waatan dowladda islaamku dhaqaalo yeelatee wuu ka hijrooday nebigu dumarkiisii jibriil baa u yimid oo waxaa lagu yidhi reerahaagii adduunyaa soo gasho adduunyay ka fikireene ka dheerow baa lagu yidhi 22 cishuu nebigu maskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiine war waxaa galay la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furay cumar baa socday inantiisii xabsu u tegey aabba nebigu muu ku fura maya nama furin maxaad samayseen wallaahi waxaan samaynoo dembi weyn annagu ma garanayne waan isku imanoo waxaan soo hadal qaadno nidhi waatan dowladda islaamku dhaqaalo yeelatee muu nebigu masaariif inoo qor haddee toole masaariif yar